gobolka Soomaalida Ethiopia ee loogu yeero Ogaden waa gobol ay ku nool yihiin malaayiin Soomaali ah. taariikh ahaan dhulkaasi Soomaalida Ethiopia waxa si weyn loogu xusuustaa dagaalkii xukuumaddii militariga ahayd ee Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre iyo xukuumaddii Mengistu Ethiopia ku dhex maray sanadkii 1977 laakiin sanadkii 1991 kadib waxa uu noqday dawlad goboleed ay Soomaalidu leedahay oo loo yaqaanay gobolka shanaad ama Zone 5. aad ay dadka gobolka wax ka qoraa ugu kala aragti duwan yihiin tirada saxda ah ee Soomaalida ku nool, iyadoo tiro koob la sameeyay sanadkii 1994 lagu eedeeyay in si ula kac ah hoos loogu dhigay tirada dadka Soomaalida ee gobolkaasi. dadka ku doodayay in tirada Soomaalida hoos loo dhigay ayaa qabay inay ka badnaayeen 7 ilaa 9 milyan oo qof, laakiin lagu sheegay wax ka yar 4 milyan oo qof. dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa qaba in mar walba xaaladda ammaan, dhaqaale iyo siyaasadeed inay ku xiran tahay hadba siyaasadda guud ee waddanka Ethiopia. Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax waa aqoon-yahan ka soo jeeda gobolka Soomaalida Ethiopia, Mareykankana baraka ah. horta marka ugu horeysa aad baad u mahadsantihiin inaad fursadan qaaliga na siiseen. marka labaad, saad og tahay Ethiopia waxaa soo maray taariikh ahaan 3 dowladood oo kala gedisan. waxaa jirtay dowladdii Haile Selassie ee imperialada ma garanaysa oo ka dhaxashay dowladdii Menelik. taasi waxay odhan jirtay anu waxaan matalayaa waxay Christianity bay ku dhisnayd, waxa kaliyaata iyagu dadka kale oo dhan ee qoomiyadaha kala gedisan Ethiopia waxba uma ogolayn. waxa ku xigtay taasi dargigii wuxuu yidhi sida u bedilaan magaranaysaa qaabkii oo magaranaysaa dowladdan dhexdhexaadka ee afka qaarad lagu tilmaamo centralized state-ka. iyaguna waxay yidhaaheen waxaan nahay socialist baan qaadanay oo waxaan u bedilay dhibaatadii ka dhexaysay qoomiyadaha dhexdeeda, waxaan u bedilnay wax la yidhaaho class, dabaqadaan u bedilay. way soo socoto waxaa yimiday 1991 dowladdan iminka ee federaalka. dowladdan federaalkuna iyagu waxay yidhaheen anagu waxaan qaadanay sidaan federal system baan qaadanay. laakiin dhibaatadu waxa weeyaan tan iyo ma garanaysaa waktigii la aasaasay dowladda Ethiopia waxaan la yidhaaho state, nation state ee lagu tilmaamo. dhibaatadu waxa weeyaan dad waxaa jira xagga inta dhexda ee ka yimaada xaggan dhibaatada oo ku salaysnayd dadka sida matalan Soomaalida oo kale, Cafarta, Gaambeelaha, even Oromada haba yaraata waxba looma ogolayn. dowladaha aan sheegay kala gedisana sida matalan Haile Selassie oo kale wuxuu qaatay qaab ma garanaysa dadkii oo dhan waxa iyagu dadkiisa reerkiisoo kale uu ka dhigo. kolka haddaan soo gaabiyo waxa weeyaan dhibaatada ugu weyn maanta ee dadka Soomaaliyeed haysata waxaa ka mid ah kolkii ay federaalka dowladdan EPRDF-ta ay qaadatay waxay ku salaysay 8 ma garanaysaa kala gedisan oo xisbi. 4 waxay yihiin 4 iminka maamusha ee sida Amxaarada, Oromada, qoladan kale Tigreega iyo kuwan la yidhaha South kale isku yidhaaho. 4 kale soo raacda waa Soomaalida, Gaambeelaha, Cafarta iyo Benishangul baa la yidhaha. 4 waxay lagu tilmaamaan wax af Amxaarika lagu tilmaamo agaar waxay ka dhigan tahay xisbigan guudka annagu wax awooda kuma lihiin. iminka maalintii dhaweyda Abiy la doortay haba yaraatee wax aan dad ku leenahay oo na matalaya ma jiro. kolka waxaan uga socdaa waxa weeyaan taariikhda Ethiopia kolkaad eegtid waxaan agaarka la yidhaahiyo dowladihii kala gedisnaa kol kasti dowladooda siday dadkan ma garanaysaa siduu awoodu ayuna gacantooda uga bixin intan ma garanaysaa adiis iyo inta guudka ka timiday ayaa dadkan kale kala gedisana la cadaadin jiray. sartu xagaasay ka qorsantahay, dhibaatada weynba xagaasay ka timid. aragti la mid ah tan Dr. Ismaaciil waxaa qaba Axmed Bidix oo isna ka soo jeeda gobolka kana faallooda siyaasadda bariga Afrika. qadka telefoonka ee Nairobi ayuu igu waramay. walaal aad iyo aad baad u mahadsantahay. xaaladda siyaasadeed iyo dhaqaale iyo amni markii aan ka soo bilowno xilligii ay isbedeladii Ethiopia ku yimid oo kala dambeeyay taariikhda Ethiopia markii la yiraahdo waxay ahayd tii ugu horeysay intuu dalbay ahayd oo Haile Selassie wixii ka horeeyay baa ahayd dadkii dalkaba annaga la ahayd. tii kale waxay ahayd Mengistu Haile Mariam iyo maxaan ku raahdaa dictatorship ahayd oo taasina waxay ahayd in militariga la xoogayo caqliga dadkana lala dagaalamo. tii kale waxay ahayd in uu Meles Zenawi iyo xisbiga EPRDF ay qabsadeen dalka, taasina authoritarian bay ahayd oo waxay ahayd dadka annaga waxaan idin qabanayna idinku annagana adeeca. oo taasina waxay raadisaa aqoon dadka ka hesha ayay raadisaa. xukunka marka isbedelkaasi markuu guud ahaan Ethiopia ku dhacay gobolka Soomaalida halkaasi Masiko
iska yar ahayd xilli dawladda Soomaaliya ay soo burburtay dadkuna una jirin aqoonyahan fara badan oo ku dhex milmay dalka Ethiopia marka sidii loo baahnaa laguma faa'iideysan hase yeeshee xukuumaddii ku meel gaarka ahayd si fiican ayaa loo dhex galay waxaana la dhisay dawlad ku meel gaar kadib nasiibada waxaa dhacday inay oo dagaal ay dhacay isaga oo ay dhaqaale ahaan isbedeshay nabadgelyo ahaana markaas ay roon tahay wadanku uu roon yahay ayay jabhadahaasi baxeen jabhadahaas markay baxeen intaa ka dambeysay oo dhan waxaa dadka dhiiggiisa lagu banaystay barnaamijka la yidhahdo security ayaa lagu banaystay dadka dhiiggiisa oo horumarkii lagula dagaalamay oo maxaan ku dhahdaa nabadgeli wax walba wuxuu ku istaagay barnaamijka nabadgelyo la yidhahdo oo ilaa iyo hadda xukuumadda jirtay ay ka dhalatay hay-adihii ammaanka ee wadanka ka jiray ay ka dhalatay ilaa iyo hadda xukuumadda marka laga soo tago siyaasadda guud ee dowladda federaalka Ethiopia ee ku wajahan gobollada federaalka waxaa gobolka Soomaalida si weyn uga jira caburin iyo dhibaatooyin ay shacabku tabanayaan bilihii u dambeeyna waxa si joogto ah idaacaddan VOA-da ula soo xiriirayay dad ka soo jeeda gobolka oo ka cabanaya cadaalad darro ay sheegeen in lagu hayo cabashooyinka VOA-da soo gaarayay badankood waxay dadku ka tirsanayaan ciidamada booliska gaarka ah ee dowlad deegaanka ee loo yaqaano Liu Police oo gobolkaasi laga aasaasay sanadkii 2007 xilliga oo kacdoonkii jabhadda ONLF ee ka dhanka ahaa Ethiopia uu meel sare gaaray meelo uu ka mid yahay gobolka City waxaa maalmihii u dambeeyay ka jiray rabshado iyo kacdoon ay dadku kaga cabanayaan ciidamadan aadan allaale waa siyaasi ka soo jeeda gobolka qadka taleefanka ee gobolkaasi City ayaan kula xiriiray guud ahaan waxaan kala hadlay gobolka waxa ka socda gobolka City dhibaatada weyn marka ay soo food saartay waxay noqotay markii la keenay waxaan la yiraahdo dib u curasho marka dib u curashadii waxay noqotay in dadkii aagga laga qaado meelo kale la geeyo dad aan meesha u dalan oo la xisaabtami karayna la keeno meesha marka dadkii meesha la keenay kuwayagii meelaha kale la geeyayna waa la yeeyay intii badnayd dhowr qof baa meelaha ka shaqaysa kuwii halkanna walaalay halkanna noo keenayna dee kuma ganacsanin oo waxay noqdeen inama yaroo jeebkooda u shaqaysanaya oo dee berito nin kastiba wuxuun iska boobo wuxuun iska qaadale oo sadhigta u weynay gobolkan City ka dhacday waa taa marka aan ka eegno dhinaca sharciga dastuurka Ethiopia wuxuu dhigayaa degmo kasti waxa dadkeega doorasho galaya doorashada degmo kasti dadkeega yaa loo doortay inay maamulaan ama dee si xataa kusoo baxaan ama doorasho saxa inay kusoo baxaan laakiin dadkii doorashay kusoo baxeen layidhi yaa loo doortay inay maamulaan marka sharcigaasna sida dhabta ah waa sharci dee Ethiopia oo dhan ka dhexeeya oo saxa dee ninkii beritoole markuu dhamaysto muddadii loo doortay waa lala xisaabtami karaa oo waxaa la odhanay waxaabaad qabatay waxaabaad xumaysay waxa loo keenay doorashada waa taa horta dadaan la dooran oo wadankiina garanayn oo meel kale ka yimiday hadday kugu degaan dee dhibta iminka dhacday baa dhacaysa annaga dhinacayaga dadkeegu dad iska urursan baan nahay dhinaca Soomaalinimo xeer yar baan leenahay oo dee kala dambeyn yar oo lagu kala baxo dee waxay noqotay xeerkayagii iyo dhaqankayagii inaga noo gaar ahaana dad burburinaya ayaa meesha yimid horta dhibta gobolka City ka dhacday waa taa annagu haddaan gobolka City nahay intuu Cabdi Cumar yimiday dib waxaan ahayn beesmaan arag dad annaga naga mid oo aad u tiro badan iyo cafarta lagu daray sharci daraa loogu daray laba region hadday isqabtaan oo isku qabtaan dhul waa inagii ogaayay baabiley iyo wixii ka dhacay doorashaa dhacda xilliga doorashada dadku meeshay doonayaan bay maraan xilliga annaga horta dhibtaa buu noo keenay oo dib weyn ah midda kale u daran niman Liu Police la yidhaaho oo anshaxun oo maad aragtay waxba aanan ka xishoonin oday aan ka xishoonin islaan aan ka xishoonin iyo dhulkeegii la keenay gabadh la kubsado hanti la boobo maqaaxi la galo la cuno oo la yidhaaho waan ku siin doonaa oo la iska cuno markay gaadho 40,000 60,000 la yidhaaho war wax aan aragnay maaha mid la arkay maaha warbaahinta madaxa bannaan kormeerayaasha caalamiga ah iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda midna galaangal uma laha ogaanshaha xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta gobolka iyo tacadiyada ay geystaan ciidankan ay dadku ka cabanayaan
sanadkii 2008 ayaa ciidankan lagu wareejiyey cabdi maxamuud cumar oo xilligaa mas-uul ka ahaa hoggaanka ammaanka ee gobolka 2010 ayuu cabdi cumar madaxweyne ka noqday dowladdegaanka welina ciidamadaasi liyu booliis si toosa ayay isaga u hoos yimaadaan waa kan doctor ismaaciil maxamuud qodax mar kale dagaalada meelaha ka socda ee welibana gaaska laga helay siday ma garanaysaa waagii Chinese-kii lagu laayay awgeed ayaa waxaa la sameeyey waxaa la yidhaha liyu police-kii ee loogu talagalay ma garanaysaa deegaanka ayaa la nabadaynaya ayaa dadkii Soomaaliyeed lagu karbashay xaggaasay dhibaatadu ka dhalatay waxyaabaha hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda ay ku eedeeyaan ciidamadan gaarka ah ayaa waxaa ka mid ah dadka oo la iska xiro iyadoo aan sharci loo marin jirdil kufsi iyo weeraro ay kaga aargudanayaan ciidamadani dadka deegaanka ee ka hor yimaada iyadoo la xirxiro ehelada kuwa maamulka naqdiya ee qurbaha ku nool axmed maxamed axmed bidix ayaa qaba in maamulka Soomaalida Ethiopia uu la qabo siyaasadda guud ee caburinta xurriyadda hadalka ee ay ku dhaqanto dowladda federaalka Ethiopia taariikhda waxaynu ognahay Ethiopia inay la dagaalanto maxaan ku dhahdaa saxaafadda iyo meediyaha ay la dagaalanto dunida meelaha meediyaha ugu hooseeya iyo xorriyadda qowlka ay tahay taa waan ognahay waxaan leeyahay tii uma gobolkana gaadhay because of umaynan baranin dadku dad la qabsaday maaha inay saxaafaddu ninka haddii ruuxa la caburiyo wuu bixi oo qoriga intuqaaso duurka gelaya laakiin hadduu hadlo weligii uu iska hadlo ruuxan waxaa laga yaabaa inuu ka ciilbaxo intuu iska ciilbaxo mar walba ay meersigaasi marka waxaan leeyahay waxaa u sababa kow Ethiopia oo aan taariikhiyan laguba aqoonin meediyaha iyo maxaan ku dhahay xorriyadda qowlka inuu badan yahay aan lagu aqoonin laba isaga oo ay systemyadii kala dambeeyay ee jiray aynan dhisinba institutionno madax bannaan oo si caadi ah fikradooda u cabiri karaya ee keliya ahayd xukunka seed u aragtaa haddii xukunka aadan taageersanayna waad tegaysaa ama waad xidhmaysaa ama waad dhimanaysaa marka laga soo tago amniga waa sidii dhaqaalaha iyo nolosha dadka gobolka su-aashaasi waxaan weydiiyey buux xuseen cumar oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka Ethiopia ee gobolka xildhibaan mar soo noqday kana tirsan xisbiga Somali Democratic Alliance Force qadka Addis Ababa ayaan kula xiriiray gobolka Soomaaliya Ethiopia dhaqaale iska daayay noloshii dadka halis gashay dadku kolkuu degan yahay ay nabad jirto ee dawlad jirto oo xeer jiro ayuu dhaqaaluhu yimaadaa xeer kama socdo dhaqaaluhuna sidaas uu weyd u yahay haddii uu jirana waxa weeyin wax dadku ay taaban karayaan ma aha waddankii xeer mare dadka taageersan siyaasadda dowladdegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa qaba in gobolka uu 5 sanadood ee ugu dambeysay uu horumar ku tallaabsaday gaar ahaan xagga amniga dhaqaalaha iyo horumarka kaabayaasha dhaqaale dadkaasi waxaa ka mid ah Dayib Sheekh Cabdi oo ka mid ah aqoon-yahanka gobolka ka soo jeeda ee ku nool dalka Sacuudiga 5 sano ugu horeysay waxay ahayd habeyn isku hagaajin ciidan dhisid waa garan kartaa dowladdan oo kala daadsan oo dowladda qudhigeedu maamulka qudhigiisa uu ka mid yahay dadkii ka dhigaya xiriirka kala saarid kala shaandhayn 5 sano aan garan karnay aan ku bixin karno waxaan dhihi karnaa 5 sano ee ugu dambeysay ayuu si wanaagsan walaal maxamed u tallaabsaday hawlaha uu maanta ku tallaabsadayna dee waan garan karnaa cid walaal ay ka qarsoon tahay ma jirto ruux isagu diidan oo aan laga qaadicin karin mooyaane 5 sano waxa uu ku tallaabsaday inta dowladaha walaal hore u maray baana ku tallaabsan jirin xaqiiqatan 5 sano mataqaanaa waxaasoo mashaariica laguma samayn karo 5 sano bulshada laguma wacyigelin karo inay ka koox kala soo baxaan 5 sano intaasoo jaamacada laguma samayn karo 5 sano marka waxaan hal iyo laba kaaga taaban kara maayo waxa aad u malaan siyaasiga buux cumar laftiisa waxa uu ka mid yahay dadka qaba in isbeddelkaasi dhacay ee ka dhacay gobolka aan la dafirin horumar baa la sameeyey ninkabaana bilaabay intii ka horreysa gobolka annagu ma lahay annagu ma xukumayn rag tigree u dhashay oo TPLF la yidhaahdaa xukumayey annagana dibaddaana naga dhigay xoog baana noo sheegtay waana naga adkaaday kolka iyagaa xukumayay 15 sano 15 sano waxaa la bedelay 13 madaxweyne oo Soomaaliya laga caydiyey kililka waxa weeye maxay ka dhigan tahay kolkaas 13 u qaybiso 13 nin ninkiiba sanad buu hayay ka dhigan tahay ama 6 bilood buu hayay ka dhigan tahay maxay taasi ku dhacday waxa weeye dadkaas oo la malaynayo soco
calanka ka goog xidigta soomaalida calanka goog kama goynayo soomaali baana ka bax meesha ori waxa weeye kitaabka qur-aanka ayaa ku sawiran calankiina ma ka goyn mise ka goyn mayso ka goyn maayo soco waxa weeye dadka ay tooradu ka soo horjeedaaye dila ma dilayo soco sidaa waa socotay 15 sannadood soomaali gacanta uguma jirin xilliku soomaalina kama shaqaynaynin soomaalina madax kama ahayn waan ku cadaynayaa taasi waxa weeye cabdi cumar korkuu qabtay kililkii wuxuu noqday kilil soomaali leedahay cabdi intaa lagama dafiray shaqaalihii u eriyey kilil ka shaqaynayey ee etoobiya u eriyey shaqaale soomaali buu ku bedelay beljed buu kililkii helay horumar waxbaa laga sameeyey ninkaasi waxa weeye uu qabtay wax laakiin dawladda federaalku waxay leedahay waxaa la yidhi abeesa waxay leedahay ilmaheeguna leh. haddaba isbeddelka ka jira gobolka maxaa sabab u ah waa kan doctor ismaaciil oo ka jawaabaya. dawladihii kala gedisnaa ee sidaan kolkii horeba idhi ee Ethiopia ka mid ahaa matalan dawladdan ugu dambeysay iminka meesha ka talisa ma garanaysaa ee federal systemku waxay kaga gedisan yihiin kuwii kale haba yaraatee wax dawlad goboleed ma garanaysaa sida waxaan kilil lagu tilmaamo umay ogoleyn ma garanaysaa talabaadna eeg isbedel weyn iyo guud ahaan Ethiopia oo dhan ka dhacay xagga dhaqaalaha ee maaha wax u gaara xagga ma garanaysaa kililka Soomaalida kolkaa guud ahaan Ethiopia oo dhan sanadkii kastaba Ethiopia waxa lagu tilmaamayay dhaqaalahoodu si xawli u socday maadagt intan dambe ee 3 sanadood ugu dambeysay kacdoonkan ma garanaysaa siiba xagga qoladan Cairo u kacay maahayn intaa ka hor waxay ahayd wax Ethiopia oo dhan wala gaadhay kolkaa ma oran karo ma garanaysaa dawlad deegaanka sameeyay. sidoo kale su'aasha la xiriirta isbeddelkaasi ka dhacay gobolka Soomaalida Ethiopia waxa ka jawaabay Axmed Bidix oo ka faallooda arrimaha gobolka. waa kolay waa dhici kartaa dadku inay meelo badan wax ka fiirinayaan waxaa jirtay markii ugu horeysay isbedel wuu jiraa oo isbedel dhaqaale iyo isbedel maxaan ku dhahdaa dadku way dhacday isbedelka dhaqaalahan leeyahay oo noloshu waxyaabaha qaarkood way isbedeleen sababtuna waxa weeye si guud ah Ethiopia oo dhan ayaa waxaa dhaqaalaheedu sare u kacay sala urakacaasi marka gobolkan oo mar walba lagu dadka u dhaqdhaqaaqa ay ku hadli jireen inayna waxbarasho lahayn inayna wadooyin lahayn inayna biyo lahayn isagoo laga duulaya aragtidii dadweynaha waxaa laga jawaabay waxyaabo kamida oo inay wadooyinku sidii hore ka fiican yihiin duladu inay sidii hore ka badan yihiin ma odhan karo way ka taga badan yihin lakin inay ka badan yihiin baan ogahay nabadgelyadu inay sidii hore ka fiican tahay oo waayahan dambe ay nabadgelyo sidii hore ka fiican oo dagaaladu ay ka yaraadeen inahaas waa jirtaa. iyadoo arrimahaasi oo dhan ay gobolka ka jiraan ayaa waxaa haddana dhowaan Ethiopia ka dhacay isbeddel siyaasadeed oo ra'iisul wasaare loogu doortay Abiy Ahmed oo ah 42 jir ka soo jeeda qowmiyadda Oromada ee ugu badan dalkaasi dadkeedana lagu qiyaaso inay 3 meelood meel ka yihiin 100 milyan ee dadka reer Ethiopia. Abiy Ahmed ayaa bedelay ra'iisul wasaarihii hore Ethiopia Haile Mariam Desalegn ee xisbiga EPRDF ee dalkaasi soo xukumayay tan iyo 1991 kaasoo si lama filaan isu casilay bishii February ee sanadkan. haddaba Soomaalidu sidee uga faa'iideysan kartaa isbeddelkan cusub waa kan buux oo ku hormara. isbeddelka iminka socda waxa weeyeen isbeddel wali Soomaali gaaray maaha waxay ku xidhan tahay isbeddelka wuxuu ku xidhan yahay aragtida ummadda Soomaali ay ka qabto horumarkeeda iyo sida ay ugu halganto ayuu ku xidhan yahay. siyaasiga aadan allaale ayaa isna aragtidan qaba. waxa la yiraahdaa dib u qorshayn Soomaali laga daayo taas oo si laga daayo waa ku in ma aragtay doorasho xalaal loo sameeyo dadka oo nin kasta meeshiisii laga doortay uu maamulkeega hayo. midda kale waxaan odhan lahaa arrin waxaan u danka weyn baa jirta waxa weeye haddaan Soomaali nahay deegaankii Soomaalida xaq iyo xuquuq waxaan Ethiopia ku lahayn ma hayno waxaan nahay deegaanka u ballaaran ama ka koobaad ama ka labaad midkii doonaa la yidhaahde dulahaan tiraan 7 milyan dadana waxa weeyaan waa deegaan maadartay ku yaala dhul istiraatiijiyada oo badihii sidaa u eegayo Soomaaliya ku xidhan oo Djibouti ku xidhan marka maanta waxaa Soomaali aan odhan lahaa halkan aan ka sheegi Soomaaliya hawlin baa ku taala inaad dhexdaada aad samaysato urur ku matala oo aad u dhan tahay
oy reer ka maqnayn inaad samaysato oo nidaam aad samaysato inaad la gorgortanto Ethiopia oo xaqiiqa xaquuq waxaad lahayd aad hesho iminka maalin dhaweyto 43 wasiir ku-xigeen iyo darajada waaweyn buu leeyahay wasaaruhu magacaabay maalin saddexaad 43 kala magacaabay 3 Soomaaliya ku jirtay baleeg walaalkayo wasiiradii la magacaabay laba ku jirta waxa weeyaan xaqiiqa xaquuqdeedii Ethiopia taayno ninka Ethiopian wuxuu wax ku siin adigu marka aad jirtideed waxaaga aad doonayso ma jirno maanta ma jirno war waxa la yarahan isku nimaadno waxaan samaysano urur naanfacan samaysano Ethiopia xaq iyo xaquuq waxaan u lahayn han maaragtay la xisaabtan kaabaan maanta u baahannahay inaan ka qayb qaadano diib Sheekh Cabdi maxay isagu la tahay marka mid iyada waa laba arrimood ayaa looga mid noqon karaa walaal laba arrimood mid looga noqon karaa maamulka dowladda ka jira ugu horeeya xisbiga ama madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar inay ka go'naato sida oo mataqaanay maamulka dowladda cusub ama isbeddelka cusub ee ku shaqeynaya DRDF sida uu la jaanqaadi lahaa ka siyaasad ahaan iyo kareey ahaan iyo go'doonta ahaanba uu la jaanqaadi lahaa waa mid horta maamulka ku xidhan tan labaadna waa mid shacabka ku xidhan dowladda Soomaaliya Ethiopia ma aha oo shacabka markaa leeyahay shacabka xisbiga taageersan shacabka dowladda jooga war muwaadin walba oo u dhashay maanta mataqaanay dowladda Soomaaliya Ethiopia magacyo fara badan la baxay magac kin iyo jaan la baxay heblaayo iyo cunto la baxay wuxuu doonaa la baxo maanta waxa weeye jaanis labaad baynu haysanaa hore karaa shalay waqtigii ay EPRDF waddanka soo gashay haddii aynu ku ururi lahayn hal xisbi ama WSDP aan qaadan lahayn ama OLF aynu qaadan lahayn maanta waxaynu la qaysan lahayn dadkiina wax la qaysan lahayn awoodna way u yeelan lahayn maanta inaan isku soo sharaxno ra-iisul wasaaraha xisbiga DRDF maanta meelna baryotareyna ka mid noqono oo ballakoodana looma qalkeeni maanta xaqeena xuquuqda waa la soo bixi lahay sababtoo ah shacabka saddexaad ugu badan bay lahay ahaana dhulka ugu balaaran Ethiopia ay sheegatay Ethiopia ah inaga ah dhulka Ethiopia la leeyahay magaca Ethiopia geliya waa Soomaali baa ay ka dhigan tahay dhulka ugu badan baa leeyahay marka muwaadiniinta u dhashay dowlad deegaanka ee ka soo jeeda waxaan oran lahaa janskana waa janskii labaad hal iska daayo mataqaana kala qaybsanaanta fikradan yaryar ee mataqaana aadka u maangaaban maxayba iyo maamul muhiim ay tahay waxa hala joojiyo hala eegaan oran lahaa mataqaana madaxa guud hala laga midoobo magaca Soomaaliyeed hala hogaamiye Cabdi Cumar ra'yigiisa lagu raaco taas ma maanta lagu faa'iideysan karaa labada arrimood isbiga oo mataqaana oo ku socda in ka ra'yigiisa soo iyo shacabka meel walba uu joogo oo ra'yiga qaato oo hal go'aan la wada qaato Axmed Bidix ayaa isna aragtidan qaba aad iyo aad ugu mahadsantahay su'aashaas ayaa ugu muhiimsan aan leeyahay waxa laga faa'iideysan karayaa isbedel guud baa Ethiopia ka dhacay dadka Soomaalida waxay uga faa'iideysan karayaan iyagoo ka faa'iideysanaya khibradda muddada dheer ee waddanka hadda ku sidii hore si ka badan ay ugu dhex jireen isagoo ay ka faa'iideysanayaan isbedelka Ethiopia ka dhacay waqtiga intuu ka soo wareegay xukunkii uu sawdka maxaan ku raaa uu soo galay koonfurta uu soo wareegay oo qoomiyadii dadka ugu tirada badnayd ah waxaan oran karayaa waxaa laga faa'iideysan karayaa in la sameeyo national reconciliation process ama heshiisiin guud oo dadkao dhan lagu sameeyo dadka Soomaalida way kala aragtiwanaageen ururada la kala taageeray waxyaabo fara badan intaa la sameeyo processka labaad in shirweyne la qabto dadku ay isugu yimaadaan oo la isku weydiiyo dadka aqoon-yahankiisa iyo caqligiisa iyo culimadiisa iyo waxgaradkiisa iyo ganacsatadiisu sidee ayaynu uga faa'iideysan karaa hal maskaxna aynan ka imanin aragtaas badan oo la huriyey ay ka timaado si degdegana barnaamijkaas looga tallaabo qaado taas ayaana siyahay waa looga faa'iideysan karahayaa ugu dambeyntii waa kan Dr. Ismaaciil oo su'aashaasi ka jawaaba waxa kaliyaadka dawa ee Soomaalidu maanta kaga bixi karta waxa weeyaan Soomaalida ku waxbay yeelin inta Soomaalidu wala fadhiistaan iyagoo magaca Soomaalida ka duulaya dastuurka Ethiopia wuxuu dhigayo xaqooga ma garanaysa xaqeega in la fadhiisano oo ma garanaysa la goortana oo xaqaa ka helan u baahna dastuurku hadii ma garanaysa lagu sameeyo wax la implementation sida nimanka kale oromada xaarada dadkan kale ka disan annaguna xaqeega aan helay inta ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegaynay xaaladda siyaasadeed dhaqaale iyo amni ee gobolka Soomaalida Ethiopia
waxaa naga xusuusina inaan isku daynay inaan mas-uuliyiinta dowlad deegaanka etoobiya oo aan qaarkood la xidhiirnay si aan barnaamijkan fursad ugu siino ay qaarkood ka gaabsadeen kuwo kalena aan heli weynay